الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. kusoo dhawaada qaybtii shanaad iyo barnaamijkeennii diiniga ahaa ee ma og tahay ama hal taclam oo aynu xalqadeennan kusoo qaadan doonno hadduu ilaahay raalli ka noqdo qaybo ka mid ah waxyaabihii ugu xumaa ee reer bani israa'iil ay kula dhaqmeen nebiyadii ilaahay subxaanahu watacaala u soo diray, ama ha noqoto qowl ama ficil, sida nebiyullaahi muuse, nebiyullaahi ciise, nebiyullaahi zakariya iyo nebiyullaahi yaxye. awalan, reer bani israa'iil maxay yihiin? reer bani israa'iil waa owlaadii ka farcantay ee uu dhalay nebiyullaahi yacquub calayhi salaam, kuwa oo ka koobnaa 12 qabiil ama 12 jilib. ilaahay subxaanahu watacaala reer bani israa'iil wuxuu ka doortay uunkii wakhtigaa jiray oo uu ka fadilay, waxa uuna ku manaystay nimcooyin aada u fara badan. waxaana ka mid ah nimcooyinka in ilaahay subxaanahu watacaala uu u soo diray nebiyo aada u fara badan oo uu dhexdooda kasoo bixiyey. mar waliba oo uu nebi geeriyoodo, ilaahay haddana wuxuu dhexdooda kasoo bixin jiray nebi kaleeta oo ay sharaftiisa iyo qiimihiisa iyo karaamadiisa ay garanayaan. laakiin sida ay tahay, reer bani israa'iil waxay ahaayeen ama yihiin ilaa haddaba dad ay u sahlan tahay in ay ku caasiyaan rususha iyo nebiyada ilaahay oo xadhigga ilaahay ka furtaan. waxa aan si kooban usoo gudbin doonaa insha allahu tacaala qaybo ka mid ah waxyaabihii ugu xumaa ama ugu daraa ee ay kula dhaqmeen nebiyadii ilaahay subxaanahu watacaala usoo diray. marka koowaad aynu ka hormarro qaybo ka mid ah dhibkii ay u geysteen nebiyullaahi muuse calayhi salaam. waxaa ka mid ah hadalladoodii foosha xumaa ay kula hadleen nebiyullaahi muuse reer bani israa'iil inay dhaheen lan nu'mina laka xataa nara allaha jahratan. war muusew kuma rumaynayno ilaa aad ilaahay subxaanahu watacaala si toosa noo tusto oo aad indhaha noo saarto mooyeene si kaleeto oo aan nebinimadaada iyo rasuulnimadaada aan ku rumaynayna ma jirto. subxaana allah. waxaa kaleeto ay dhaheen fadhab anta warabbuka faqaatilaa inahaa hunaa qaaciduun. markii alla amray inay jahaad galaan oy furtaan magaalada baytulmaqdis, waxay ku dhaheen muusew annaku magaaladan ma furanayno oo dagaalka ma gelinne, orod adiga iyo rabbiga soo dagaalama, annaku meeshan baanu sii fadhinaynaa waana idin daawanaynaa. subxaana allah. waxaa kaleeto ay dhaheen markii ilaahay subxaanahu watacaala uu hortooda ku halaagay gaalkii weynaa ee fircoon ee addoonsan jiray ee dhibka badan mariyey, ayagoo arkaya markuu rabbi halaagay yaa waxay arkeen haddana dad asnaam caabudaya. arba waxay ku dhaheen yaa muusa, nabi muuse la hadleen waxay dhaheen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha. noo samee ilaah aan caabudno oo sanam ah sida ay dadkanba asnaamta u caabudayaan. subxaana allah. taa oo nabiyullaahi muuse ka xanaajisay kuna noqotay wax la yaab leh. war hadda ayuu gaalkii iyo cadowgiinnii idin dullaysan jiray eed gacantiisa ku jirteen alla idinka soo badbaadiyey, hortiinana ku halaagaye ilaahay khayrkii aada u baahantihiin muxuu yahay? waxaa kaleeto oy sameeyeen reer bani israa'iil markii nabiyullaahi muuse calayhi salaam uu rabbigii meeshii uu ku ballamiyey aaday si uu ilaahay usoo siiyo kitaabkii towreed, waxay samaysteen dibi ay caabudaan oo sanam ah. nin saamiri la dhaho ayaa u sameeyey, wuxuuna ku yidhi haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa fanasi. dibi buu sameeyey, wuxuu ku dhahay dibigan ma aragtaan? haa, waa ilaahii nabi muuse, waa ilaahi muuse waana ilaahiinii. arbay caabudeen aqli daridooda. waxaa kaleeto oo nabiyullaahi muuse ku dhaheen lan nasbira calaa طacaamin waaxidin fadcu lanaa rabbaka yukhrij lanaa mima tunbitu alardu min baqliha wa qithaa'iha wa fuumiha ilaa aakhiri aaya. markii ilaahay subxaanahu watacaala uu reer bani israa'iil u soo dejiyey cunto bisil uu samada uga soo dejiyey, yaa markii dambe waxay dhaheen waxaan maba rabne, waxaan rabnaa waxaanu beerano oonu ku daalle ee naga bedeltan. waxaa ka mid ah ficiladoodii foosha xumaa markii nin ka mid ah intii la dilay la garan waayo wax dilay ay nabi muuse u tageen ay dhaheen noo sheeg. nabi muusena ilaahay subxaanahu watacaala uu amray ee u sheegay in ay neef la ah qowracaan, laakiin maysan yeelin nabiga warkiisiiye dood ayay ka bixi waayeen. waxay ku dhaheen waad nagu ciyaaraysaa, annaga waxaan ku dhahanay ninka wixii dila noo sheegay sac qowraca iyo waxaan maxay tahay sheekadan? markii uu nabi muuse yidhi acuudu billahi an akuuna min aljaahiliin, haddana dood bay sii galeen. sacu waa noocee, intee la eg yahay, muxuu yahay, ilaa markii dambe sac aan la helinninba lagaga dhigay. waxaa ka mid ah dhibkii ay reer bani israa'iil geysteen inay u gafeen ilaahay subxaanahu watacaala, ayadoo ay yahuudi tiri cuseyr waa wiilka ilaahay, nasaarana ay tiri ciise waa wiilka ilaahay. sidoo kale waxay dhaheen ina allaha faqiirun wanaxnu aghniyaa,
ilaahay waa faqiir annaguna waxaan nahay hodan. sidoo kale yahuudi waxay tidhi yadullahi magluula, gacanta ilaahay waa ay xidhan tahay, yacni ilaahay wax ma bixiyo, deeqsi ma ahaan, waa bakhayl. waxaan leenahay subxaanahu wa tacaala camaa yaquuluuna culuwan kabiira, waxa ay ku sheegayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka dahiran oo ka nasahan. dhibkii ay geysteen reer bani israa'iil waxaa ka mid ahaa inay dileen nabiyullaahi zakariya calayhi salaam, sidoo kalena ay dileen nabiyullaahi yaxya calayhi salaam oo ahaa wiilkii zakariya. sidoo kale waxay isku dayeen inay dilaan nabiyullaahi ciisa calayhi salaam, ilaahay unbaa ka badbaadiyey mooyeene waa ay ku talagaleen oo waa ay qorshaysteen inay dilaan nabi ciise, balse ilaahay ayaa kor yeelay, bal rafacahu allahu ilayh wa kaana allahu casiizan xakiima. sidoo kaleete waxaa ka mid ahaa dhibka ay geysteen inay u gafeen maryama bintu aali cimraan. reer bani israa'iil dhibkoodu aad ayuu u badnaa. sidoo kaleete waxaa ka mid ahaa dhibka ay geysteen reer bani israa'iil inay inxiraaf ku sameeyeen kitaabadii ilaahay subxaana wa tacaala kusoo dejiyey ee towreed iyo injiil. waa ay bedeleen, waxna waa ay ku dareen, waxna waa ay ka bixiyeen. waxaa ka mid ah dhibka ay geysteen in ay tilmaamihii nabiyullaahi maxamed calayhi salaam uu lahaa ee lagu sheegay towreedii injiil ay ka masaxeen oo ka bixiyeen. waxaa ka mid ah dhibka ay geysteen in ay suneeyeen nabiyullaahi maxamed calayhi salaam si ay u dilaan, waa ayna ku kufriyeen oy beeniyeen nabiyullaahi maxamed ayagoo og inuu yahay nabigii lagu sheegay towreed iyo injiil ee la sugayay. yuhuud iyo nasaaro ama reer bani israa'iil dhibkooda aad ayuu u badan yahay. dhinaca kale waxaa baraarujin mudan inay jireen dad badan oo reer bani israa'iila kuwaasoo ahaa mu'miniin si dhaba ilaahay ugu hoggaansamay, adeecayna rusushiisa, mar walibana nebiyada ilaahay gaashaan u ahaa. waqti waliba ayaana la heli ilaa iyo samankanaynu maanta joogno. inta ayaan idiin soo gudbiyey. fadlan haddii aad ka heshay lasii wadaag walaalahada kaleete. sidoo kale